wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland mudane Maxamed Kaahin Axmed oo ku sugan magaalada Laascaanood isla markaasina halkaas u jooga arrimaha ay ka mid ka yihiin inuu dajiyo beelaha halkaas isku laayay isla markaasina halkaas dagaal baan ku dhexmarayay oo ka dhexwaday islaaxin iyo sidoo kale isu soo dhaweyn beelaha halkaas ayaa waxa uu ka hadlay arrimo badan oo ku saabsan siyaasadda guud ee Soomaaliland oo ay ka mid ka yihiin xeerka furista ururada siyaasadda ee Soomaaliland oo ay ku dhawaaqday shalay maxkamadda sare ee dalku sidoo kalena Maxamed Kaahin Axmed wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland waxa uu aad uga digay xisbiyada mucaaradku inay dalka isku dayaan inay burburiyaan sidoo kalena waxa uu aad ugu digay xisbiga mucaaradka ah ee wadani isagoo sheegay in xisbiga wadani xilligan uu dalka ku yahay cagajiyadiis isla markaasina uu diidayo horsocodka Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo arrimahaasi ka hadlaya iyo kuwa kale waxa kamid ah hadaladiisii in hadda imika muddo uu murama ka socday dalka xisbiyada mucaaradkiina ay muranada wadeen oo arrinkaasina uu ka taagnaa qaabka loo furayo iyo cidda furaysa ururada siyaasadeed ayaa muddo muranku ka taagnaa shirkan jaraa'id waxaan maanta u qabtay inaan halkan ka caddayno marka ugu horeysa horta qaranka Soomaaliland xeerar qawaaniin dastuur ayuu ku socdaa waxaana kala socodsiiyay qaab dhismeedka qaranka dastuurka Soomaaliland uu jideeyay xisbiga kulmiye xukuumadda talada haysa maxay ka qabaan maxaan ku dhahdaa arrintan muranku ragga qaarkood ay gelinayaan horta marka ugu horeysa intaynu qaranka ku nahay waa buugga kooban aan hadda gacanta ku hayo ee la yiraahdo dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qaranka Soomaaliland intaas ku yahay ayuu qaran ku yahay qaranka marka qof kasta hadduu madaxweyne yahay iyo hadduu maxaan ku raahday ganacsade meherad ka soo jeeda yahay ila ganacsadaha meherada ka soo jeeda dastuurka qaranka ayaa u jideeyay liisan buu ku haystaa sharci buu ku haystaa nin walba intaas oo qoro uu sharci ku yahay ka markuu ninku laabo sharci alaaliye sharci uu yahay iyo wax uu yahay toona ma jiraan sideedaba markaa ummad kasta oo nool iyo qaran kasta oo nool taariikhdiisu waxbay buddhig oo ah dastuurkan qaranka Soomaaliland marka aad eegto waxyaalaha uu xiganayo ararta dastuurkan waxa ay ku qotonto waxa uu tixraacayo waxa uu aasaaska ka dhiganayo waxa kamid ah ararta dastuurkan qaranka Soomaaliland ee ay xusaysaa qarankanina waxa uu ku taagan yahay taariikh halgameed oo dheer oo muddo qarniye saayida maxaan ku dhahday hadda soo jirtay dastuurka xusaya halganadaas oo ay ugu horeysay halgankii daraawiishta xarunta tale xaruntiisu ahayd ee 1900 maxaan ku dhahday la aasaasay ee maanta laga joogo 100 sanadood iyo googa ee kii maxaan ku dhahday ururadii iyo xisbiyadii siyaasiga ahaa ee SNL SNS USP NUF ay soo mareen ee kiisana ugu dambeeyay inta dastuurkan xusaya dastuurkan markuu sidaa u xusayo qaranka Soomaaliland maxaa buddhig looga dhigay maxaa laf dhabar looga dhigay maxaa aasaas looga dhigay inaha waxa sameeyay shirarkii qarankan uu nabadgelyadiisa ku soo xasiliyay ee gobol walba ka dhacay gobolkan Sool ka dhacay oo Boogaysta uu ka dhacay deegaankana martigeliyay sanaag bari shimbiraalu ka dhacay beeshash maxaan ku dhahdaa sanaag bari ee maxaan ku dhahdaa badan iyo dhahar iyo la isqori degtaa maxaan ku dhahdaa martigeliyay kii garaadag deegaanka garaadag jooga martigeliyay kii ceerigaabo deegaanka ceerigaabo ayaa maxaan ku dhahdaa martigeliyay kii burco deegaanka gobolka Togdheer burco martigeliyay kii sheekh kii berbera kii hargeysa 790 ugu dambeeyay kii maxaan ku dhahdaa boorame labada shirweyne ee asaaska oo ah
midna yidhaahdo waa shirweynihii maxaanku dhahdaa grand conferencekii waa kii burco kii boorame qarannimada Somaliland intaasaa lagu soo taabageliyey maxaa budhig looga dhigay waxaa budhig looga dhigay nabadgelyada kala wadaagga dimuqraadiyadda dulqaadka intaa yaa lahoo la saaray intaa waxaa le madaxda qaranka maamusha waa hadduu madaxweyne yahay iyo xisbiga uu ka tirsan yahay iyo hadduu xisbi mucaarada yahay oo musharax madaxweyne soo maray ama mid imika u taagan uu yahay hadduu suldaan iyo garaad iyo caaqil iyo sheekh iyo culamaa udiinkeena iyo dadka waayeelka heenin garboodka aynu nahno dadkaasaa ayuu farayaa dastuurkani inay ilaaliyaan tala wadaagga qaranka saxaafadiina ka mida dugsiyada iyo jaamacadaha dadkaynu ku soo barbaarinayna ka mid oo dadka qaarkood meelaha qaarkood dowladaha horumaray sistemyada iyo structureka dowladda halka ay saddexda qolo aynu naqaano jaamacadaha ka mida dadka lagu daro waxaynu arrintaa kaga soo samatabaxnay dhibaato aad iyo aad fara badan dagaalo iyo istil aad iyo aad u fara badan baynu kaga soo samatabaxnay waxaynu kaga soo samatabaxnay burbur ka yimid dowlado kale talis ah oo qarankan aafeeyey ayaynu kaga soo samatabaxnay waxaynu kaga samatabaxnay dhibaatada imika ka taagan Soomaaliya waataynu shalayta isku dowladda ahayd 30 sanadood waataynu maxaanku dhahdaa dadka dowladda qoriga wada maamusha ahayn maxaa sababay in ay iyaga maanta jiri kari weydo shalayta dagaalada halkan hareeraheenu ka dhacay reer Somaliland maamulada aynu xad ka leenahay xamar buu ka taagay Kismaayo iyo koonfurtu ka taagay meel walba ka taagay waxaynu kaga samatabaxnay inta hadda aan soo sheegay baynu taladeedii ku mintidnay سعد وبرارة ستور كانوا وحوا قيحيا قضب كيسة الضبية صدرات فقرات ديسة كوباد إيا فقرات ديسة اللبعات وحي حدي ديسة يا قرن كان مامورة وحاو حديدة يا مركان إنو قرن كان يكدسي هاي صدحة دار وهالكنا waxay ugu qorantay 3 waaxood ayaa article-ka ay ugu qorantahay 3 waaxood oo kala ah waaxda xeerdajinta waxa isku markaa waaxda isku noqda golaha wakiilada iyo golaha guurtiga inoo ah waaxda xeerdajinta waaxda fulinta waaxda garsoorka ay u sareyso maxkamadda aynu naqaano maxkamadda sare ama maxkamadda dastuuriga saddexda gole waa saddex gole oo qarankan ku wada jira waa saddex gole oo kala madax bannaan waa saddex gole oo mid walba waajibaadkiisa dastuurka cadeynayo waa saddex gole oo isdheelitira waxaa loo yidhi saddex dhardhaarka waxaa loogu macneeyey dheriga marka dabka la saaro haddii laba dhardhaar celin maayaan in saddexdaa dhardhaar ay isdheelitiraan qolyaha ajnabigana waxay ku dhahdaan check and balance way isubiyaan way isdheelitiraan mid waliba wuxuu leeyahay awoodiisa dastuuriga ah oo ka kala ka madax bannaan intaasi markaa sidaa u shaqaynayso ee nidaamka dowladeed sidaa u shaqaynayo wuxuu ku shaqaynayaa xeerka dastuurka iyo shuruucda ka dheeganta xeerka dastuurka biliiska qof soo qabanaya iskama soo qabanaya xeer baa siinaya xeer ilaaliyaha eedeynaya iska eedeyn maayo xeer baa siinaya maxkamadda fadhida degmo iyo gobol iyo maxaan ku dhahdaa racfaan gobol iyo maxkamadda sare qaranka iyo nidaam la yiraahdo dib u eegista inta xeer baa wada siinaya xeerka marka la wada siinaya cid ay noo haysan ee inagu ilaalisa ee dawladda ku ilaalisa
ee madaxweynaha ku ilaalisa ee hay'ad kasta ku ilaalisa waa maxkamadda sare ee qaranka. arrinta markaa laga hadlayay ee ayaantan maxaan ku raahdaayay mucaaridku ay aad uga hadlayeen cidda lagu joorfalay xusbiyada mucaaridku waa caadi day waxay mucaarid u yihiin inay dawladda wax ka sheegaan ama run ha ka sheegaan ama been ha ka sheegaan laakiin cidday imika ayaantii dhawta la hadal hayay ee la lahaa maxaan ku raahdaayay waa meel lagu shaqaysto waa meel madaxweynuhu sharciga marsado waa meel maxaan ku raahdaayay sharci dabada laga riixayo la keenay afafkii ka baxayay saxaafadda qaranka weedhigooda garanayna waxa weeye arrinkaasi waa arrin marka ugu horeysa horta mas'uuliyad darro ku jirto waa laba waa arrin qarankan ka qaadaya sharafta iyo haybadda qaran waliba wuxuu leeyahay maxaan ku raahdaayay haybad buu leeyahay haybadda qaranku leeyahay waa qarannimadiisa waynu aragnayo maxkamadaha markay maxkamadda fadhiyaan diraysyo gaara bay leeyihiin mararka kale ma gashadaan adduunyada dhan baynu la wadaagnaa haybadda iyo sharafka ayaa la ilaalinaya waxaan aad iyo aad uga xunnahay inay qarankan oo gudooga imika 31 jirsaday in afafka noocaasihi dad doonaya berita ka maalin inay xukunkan maamulaan oo u tartamaya inay wax xukunka qarankan dhicis ka dhigaya oo haybadiisa iyo sharafkiisa baabeynaya ay ku dhacaan furitaanka ururada siyaasadeed ama maxaan ku yiraahdaayay xusbiyada siyaasadeed waxa qeexaya xeer la yiraahdo xeer number 14/2021 waa xeerka aan gacanta ku hayo waxa gidigin ka helaysaan waad gogol garanaysaan oo imika isagoo sidiisa ka helaysaan oo xeerkan saaray yahay saxiixi Cabdiraxmaan Ciro maanta la musharax madaxweyne ah ayaa xeerkan imika aan gacanta ku hayo ayaa saxiixiisa saaray waxaan nasiib darro ah sharciga saxiixiisa saaran inuu maanta ka dhigo sharci aan jirin inuu ka dhigo mid la malaabuurayo إذا يعني أركاسي وأرن آديات وأرن آديات أنت أوليتا حيركن محكمة قرنكو تفسير لا يسكما هي حيركن ينو حيري هاي لا يسكما هي حيركن ينو أتشرو لا يسكما هي حيركن ينو سيدي سو صعدا لكن maxaa horta asalkeeda bal looga jeedaa in ururada siyaasiga aan la furo iyo xusbiye siyaasiga la soo saaro ilaa imika qaar ba xusbiye siyaasiga saddex xusbi qaran baa jira dastuurka qaranka ku qoray kanina wuxuu ka dhigay dastuurka qaranka ururada siyaasiga qodobka lixaad dastuurka qaranka saddexda xusbi qaran sheegaya haddana faqradiisa saddexaad waxa ay sheegaysaa oo oranaysaa maxaan ku raahdaayay waxa ay oranaysaa hadii loo baahdo in la sameeyo xusbiye siyaasadeed qodobka 9aad ee dastuurka qaranka lahada qalaxad ma dastuurka qaranka ayaa sheegaya in nidaamka xisaabta badan lagu maamulayo dalka saddex xusbi qaran ay soo baxayso hadii iyadan oo xeer gaar ah habayn doono qaabka loo furan karo xisbiye siyaasadeed kaasoo ku saleysan yahay qodobkan xeerkan 14 ee 2011 muxuu yahay xeerkan haddaba xeerkani waxa weeye waa tiirarka iyo lafdhabarka siyaasadeed dimuqraadiyadeed tala wadaag tala ka qaybgelida qaranka Soomaaliland xeerkan waxa loo sameeyay dood muddo dheer socotay oo ay soo saareen dadka siyaasiyiinta ah damacyada siyaasadeedna leh oo oranaya inta badan ka duulayo
siyaasadii waxay gacanta u gashay oo maxaan ku dhahdaa monopoly ku haysta 3 xisbi qaran dooda midda laga doonay ma dood saxaba dood sax maaha laakiin xeerka wuxuu kala saarayaa oo odhanaya hadii loo baahdo in xisbiga siyaasadeed la furo xeer gaar ah ayaa cadeynaya xeerkana waa kan xeerkan marka waxa looga jeedaa inaanay cidna cidhiidhi ku noqonin inaanay cidna jorfal ku noqonin inaanay cidna dhibaato ku noqonin habka iyo hanaanka loo marayo ururada siyaasadeed iyo ka qaybgalka siyaasadda qaranka inuu qof waliba helo oo waa qodob waa laba halkaynu marayna waxa loo marayaa markaa xeerarka hanaanka xeerarka loo maro xukuumadda qaranka u soo diyaariso golaha wakiilada loogu gudbiyo labada golo ay isu gudbiyaan intaasoo dhan baa loo maraa si aanay maxaan ku raadey xeerarka gaf loogu sameeyay xeerkan marka arrintan intan maxkamadda ay ku haysay gacanta waxa weeye tafsiir inay ka bixiso cidii mugdi kaga jiro ama su'aalaadka laga soo jeediyay markasta oo loo baahdo dastuurkan qaranka in la isku qabto ama cid ay tafsiir uga baahato waxa tafsiiraya maxkamadda qaranka maxkamadda dastuuriga ba tafsiiraysa nin waliba sidoo rabo tafsiiran kari maayo annagu marka haddaanu nahay xisbiga kulmiye xukuumadda talada gacanta ku haysa maanta ee ka soo jeeda xisbiga kulmiye waa marka ugu horeysa asal ahaantiisii u horeysay qaynuunkan xisbiga kulmiye mala awaalay oo hal abuuray xilligii Axmed Maxamed Maxamuud Siilaaye uu madaxweynaha noqday ayadoo laga duulayo aragtida iyo fikirka dadka siyaasiyiinta loo yaqaan stakeholders ay khusayso inay arrinta kaga doodayaan ayaa la sameeyay labada goloba waa la mariyay sidaas ku masaxay oo xeer qaran ku yahay annagu hadda waxaanu aaminsanahay inaanu xeerkan ku aasaasannahay madaxweynuhu inuu xeerkan ku ka yahay xisbigu inuu yahay axsaabta siyaasiga ah ee dastuurkan ansixinayo xisbiga suuragal kama aha madaxweynaha qaranka siyaaso suuragal kama aha qoladani sida ay sheegayaan oo arrinaan waxba ka jirin xeer madaxtooyadu hadaladooda waxa ka mid ah xeer madaxtooyadu ay dabada ka riixayso sababtan imika buuqan faraha badan leeyna geliyay intan dariiqa dheer aan ka soo sheekeeyay saaxiibadayada maxaan ku dhahday maalintii dhawata hadlayay xisbiga wadani dariiqa qarankan loo soo maray garanba maaya dhuxule faraha lagaga soo gubtay bay iyagu ku dheeldheelayeen waayo kumay soo gubanin laakiin dadkii dariiqa soo maray dadkii intana ka hadlaya goobjooga ka soo wadaha qarannimada ilaaliskeeda wuu garanayaa oo markaan arrintan intaasaan soo sheegay markay soo marto waxa bannaan oo sharcigu bannaynaya xeerarkan inay ogol yihiin mar walbana xisbiyada caadi ah iyaga oo ay hogaaminayo komishanka doorashooyinku in ay u qabtaan kulamo iyo shirar kala wadaag ay kaga yeelanayaan kagana wada hadlaan arrimaha noocana markay iskoo siyaasadooda u cadeynayaan xaq bay u leeyihiin inay kala hadlaan haddaba hanaanka habraaca loo marayo ururadan hadda maxkamaddu shalata soo saartay furitaankooda qaabka ay u furmayaan qaabka isu diiwaan gelinayaan shuruudaha ku xidhan ee ay laga eegayo sida maxaan ku dhahdaa loo eegayo maxaan ku dhahdaa gobolada tirooyinka ay isku soo cadeynayaan in allaaliya intan oo dhan xeerka number 14 2020 ayaa si cad u qeexaya xeerka ayaa maamulaya oo yaa fulinaya siday doorashada ay ku kala baxayaan u geliyaan shuruudaha lagu qabanay ku xidhan intay yihiin laba hay-adood ba arrinka imika wixii ka bilaaba
shalayta markay qaraarkaa soo jeedisay laba hay-adood baa maamulaya labada hay-adood ee maamulaya waxa weeye waa komishanka ururada iyo xisbiyada siyaasadeed ee qaranka habraacooda diiwaangelintooda shuruudahooda xeerarkooda waxa laaliya waxaa soo dhan waa urur qaran iyo komishanka doorashooyinka qaranka oo isaguna qabanaya shalaytana maxkamaddu ay ka sheegtay sida loo qabanayo maxaanku dhahdaa habraaca doorashooyinkooda qodobka shalayta ku jira qolada qaarkoodna ay sida khaladkaa uga fahamsan yihiin waxa weeye wuxuu laalay doorashadii golayaasha deegaanka ee lagu kala saarayay ururada siyaasadda xeerkana wuxuu qorayaa si ay u soo baxaan 3 xisbi qaran waxay ku soo kala baxayaan xisbiyadu waxay ku soo kala baxayaan doorashada golayaasha deegaanka deedoo qoraya 6 gobol doorasho intaasoo gobol doorasho waa inuu xisbi qaran noqonaya waa inuu helaa 20% codadka guud ee laga dhiibtay haddii taa la waayo 3 xisbi ugu tirada badan codadka la dhiibay ayaa u soo baxaya xisbi qaran maadaama imika 4 bilood ama 5 bilood muddo aan ka badnayn aynu ka joogno doorashadii golayaasha deegaanka ururada imika la furay sugi maayaan 5 sannadood golaha nin dhamaysta doorashadii golaha deegaanku soo baxda waa inay dowladda taa ka qayb galaan waa in qiil la helaa sharci qiilka sharciga la helayana waxa soo saaraysa maxkamadda sare maxkamadda sarena way soo saartay maxkamadda sarena waxay soo saartay xusbiyada waxaan leeyahay doorashada golayaasha deegaanku inaanay ku dabranaanin maxaan ku leeyahay xisbiyada ku kala baxayaan ee loo qabto doorasho caadi ah cid qabanaysa ay noqoto komishanka doorashooyinka xisbiga kulmiye berito saadambe 10 casho dabadeed bisha dabadeed 2 bilood dabadeed November shirku dhamaanay doorashada madaxtooyadu ay dhamaanaysay xilli allaale iyo xilliga la qabtaa xisbiga kulmiye diyad xukuumadiisu diyaar u tahay inay doorashadii madaxweynaha ka qayb galaan laakiin daanku ma maamulo madaxweynuhuna ma maamulo waxaanu warka ka sugaynaa kaltanka iyo qaabka iyo xilliga doorashada la galayo waxaanu ka sugaynaa komishanka doorashooyinka qaranka intaan ku soo ururinaya doorashada bariga dhawta galati 7 bay ahayd 2 golo ay saaran labadooda doorasho marka la eegana mid 8aad oo mid kala sii dul saaran bay noqonaysay dadka hoggaanka qaranku uma baahna in uu confuse gareeyo ama in uu arbush ku sameeyo ummadiisa inta aan ahayn aan anigu imaka sheegay ee labada dastuurka qaranka iyo xeer number 14 uu qorayo cid alaaliye cid haysa dood siyaasi aanu kala qayb galayna haddaan xisbiga nahay oo diyaar baanu inaan isaga nimaado waxaan haynaa wacdaynteedii la hayaa oo buruufkeedii la hayaa in hadda imika ayaamihii dhaweyto goboladii socdaalada ay ku mariyeen xisbiga wadani in dadka lagu abaabulayay waa layna boobaya goormaanu boobayna doorashada lama qabanina maanu boobna tii ayaantii hore annaka maamulaynay dowladda kharashkeeda bixisay doorasho la booba waxay ku timaadaanu garanaynaa dadminisigu hadday jaaniska hayeen waxbay boobi lahaayeen nasiibana jaaniskii baan haysanin waxay dadka ku abaabulayeen waa layna boobaya hal la diyaar garoobo dadweynuhu ha kaco nabadgelyo darraa ku kaco dadkaaga waxaanad ka qaban karin hadhow ta laguma abaabulo annagu dadka waxaanu leenahay cid wax boobaysaa ma jirto
أننا بوبي منو عدي وحبوبي سنة ونقايل علينا دورشوين كيني أدوية دورنا بينقو مشارتين كواس أو كلي نقلينا تيو كلنا وينو سميننا بقول يدوريا طبعا إرقي oo ka socota dawladda iyo ururo caalami ah ayaynu keenay berigii dhaweyto oo ay ku jiraan dhowr iyo 10 dawladood waa markii ugu horeysay ee dhowr iyo 10 dawladood safiiradii ka socday dawladda waaweyn oo dawladihii Yurub ah ay ka soo qayb galeen doorashadeennii warbixinta saxaafadda tiina waa faafin karaysaa waxaad ka helaysan waa la soo baxdayo dabadeed waxaad ka helaysan International Observers ki Somaliland election 2021 ayaa imika ku dhufanaysan waa ka helaysan wax allaaleeyo wixii haybada haye aynu soo tacabnay waxa haybadaas oo dhan burburinaya taadiyada dhan mucaaradku u jira adiyada dhan mucaarad iyo muxaafid way is haystaan adiyada dhan mucaaradku cid dawladda hayso oo muxaafida bay lulayaan oo ruxayaan taa adiyadu inaguma diidana adiyadu taa way nagu abaal marinaysaa waxa leedahay meel wanaagsan baa maraysan laakiin halka qaramada ummadaha adduunyada shakiga ay dhagelinayay ictiraafkeena waxa weeye marka xisbiyada siyaasiga ay leeyihiin waa la dagaalamaya oo ayaantii dhowta afkooda ka lahayn dagaal baa dhacaya oo ay leeyihiin waxaynu dib ugu noqonaynaa hanaankii maxaan ku dhahday 2004 waan ka xunnahay annaku arrinkaas ma qabno arrinkaas ma aaminsanin cida wadinta leeyahay qarankan ruuxi karaysana inay jirto ma aaminsanin dhibaatada soo maray hawsha faraha badan la soo maray marka waxaan leenahay annagu taasna waxaan ka aaminsanahay in xisabta siyaasiga ah ururada maxaan ku dhahday xisbiyada maamulaya iyo komishanka maxaan ku dhahday doorashada maamulaya ayaanu diyaar u nahay xeerarkaanu ku dhaqmaynaa cidii xeerarka ku dhaqmi weydana qaranku xeer buu leeyahay cidii qaranka dhibaato keenaysa xeerarkiisa maxaan ku dhahday joojisa aad iyo aad